codad 40 meelood oo laba mataanayso oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku ku muujiyo oo meel hakala saaran maamus tilmaamaha halkuu marayay loo eegay mahmaahda kii loo hayay in magac falkaab soo marbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarminoo meel u wada jeeda ma weydiina su'aal mara ku dadan maqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqday meel islaba laama ma taqaan miyaad baratay weli mana lagu sheegay kusoo dhawaada barnaamijkan aqoonta iyo cilmiga ku dhisan kuna soo dhawaada barnaamijkan oo ah macnaha daahfurka buugaagta manhajkii waxbarashada Soomaaliya oo buugtii dugsigii hoose oo dib u habeeyay dibna isugu dabariday Cabdulfataax marka waxaan rajaynaynaa wada taqaanaan qoraaga marka anigoo waqtiga ku sii dheeraanaynin dhammaantiin soo dhawaada mar kale barnaamijkan aad halka aragtaan barnaamijka waxaa soo qaban qaabay sida aragtaan rugta barashada afka Soomaaliga afka hooyo oo runtii afkeena hooyo ee hodankan maanta halkan u joogno oo ay muhiim tahay in bulshada Soomaaliyeed runtii aad loogu baraarujiyo waxaa halkan nala jooga runtii aniga ku bilaabayo ustaad Sheekh Cabdiwahaab Cusmaan sidoo kale waxaa nala joogta sanatarad ka tirsan sanatarada hadda golaha ku jiro baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya waan waliba ay noo tahay sharaf iyo karaamo runtii inaanu anagoo ka hadlayno waxbarashadii manhajkii Soomaaliya haddana ay xubnaha ka socda dowladda ay halkan nala joogaan waxaa nala jooga Sheekh Cadaan Ibrahim oo ka socda bahda waxbarashada iyo runtii Xaaji Cabdirasaaq Cabdi Ali Sooyaan oo isna ka socda Nobel Academy bahdii waxbarashada iyadana ay mudnayd waliba maanta inay ku soo beemaan nalana joogaan inaanu halkan kaga hadalno afka Soomaaliga oo runtii af aad u hodan ah lagana hadlo 5 gobol oo Soomaaliya ka wada kamid ah Kenya iyo Soomaaliya waqooyiga iyo koonfurta iyo Djibouti iyo dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia marka runtii soo dhawaada mar kale barnaamijkan waxaan ku furfuranaynaa soo dhaweynayaa Cabdifataax Faray oo barnaamijkan runtii si hufan uga hadli doono waxyaalihii ku kalifay inuu buugtan dib u daabaco dib u qoro heerarkii uu la soo maray iyo runtii ujeedada ku kaliftay inuu buugtan dib u daabaco buugtan waa dugsigii hoose buugaagta dugsiga hoose Soomaaliya lagu dhigi jiray barsamaad anaga dadka nasiib ku yeelan baan ka mid nahay kulay dad badan oo khiyaaro waaweyn oo oo nasiib u yeeshay halkan jooga marka dadka oo baa fahmi karaya waxaan soo gaarnay iyadoo sheeko una inagu soo gaarto heesihii buugaas fasalka labaad ku jirtay alla dheeriya oo dhuxusha ka madoobiya abahay baan arka yani heeso noocaas oo kala buugay ku taala mar raba inaan ninka hor dhaco dadka aan horay aan u maqal heesaas marka Cabdifataax soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan idinku salaamay salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad iyo aad baan waxaan idinka mahad celinayaa dadkiina ka noo soo huray waqtiga qaaliga ah si ay qayb uga noqdaan ahmiyadda iyo hadafka aanu leenahay ayna qayb uga noqdaan insha Allah waxaan anigu soo taagay hadda la igu yeeray inaan furo barnaamijka si uu u bilowdo laakiin aniga hadalkayga dib baan dhiganayaa markaa insha Allah waqtiga la gaaro oo dadka wixii hadlaya oo hadli kara oo ka hadlaya ahmiyadda iyo hadafka aynu leenahay iyo ujeedada aynu meeshan u nimi ay dhamaystirtaan ayaan insha Allah waxaan gunaanadayaa barnaamijka markaasaan hadalkayga iyo wixii aan ka oran lahaa oranaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana inoo furan yahay barnaamijkeena aan ugu hore u galeynaa iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdiwahaab Cusmaan Sheekh soo dhawow magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiwahaab Cusmaan ayaa la yiraahdaa koofi badan yaan iska gashtaa wadaadna waa ahay wasiirka tacliintana mar aan wajeer u ahaa county government 20 sano wajeer high school aan macalinka ahaa dugsiga hoose dhexe Cali Xuseen ee wadajir xaafadda wadajiraan ka soo baxay number 4 dugsiga ku yaala ee la yiraahdo Mogadishu Polytechnic 1986 ka baxay jaamacadda Uganda dhameeyay 1999 Egerton University-na wax baan ka dhigtay wasaaradda tacliinta ayaan jooga Nairobi meeshan ayaan jooga intaas waa taariifkayga yar
iyo runtii si gaar inaan ugu faraxsanahay luqadan aan wax ku soo bartay markii aan yaraa weliba ilaa standard 8 yay ahayd annaga bolotechnic markaan tegay waan xasuustaa annaga iyo af Soomaali wax nagula soo baraa markiiba la yiri wixii waxba kama jiraan marka what is chemistry yani waa xasuustaa macallinkii u horeeyay noo soo galay what is chemistry yu sabuurada ku qoray ingiliishu ku qoray laakiin waan rabno xogaa niyadan u hayno dad maskaxda laga dhaqaan ahayn xogaa waxaan aaminsanayn Soomaaliga inaan loo baahnayno maadaama English wax nagula baraayo inay fiicnayd ala kulli xaal aad baan mahad ugu celinayaa xafladan dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galay luqadda sideedaba waa dhaxal runtii ummadda ay iska leedahay dadka halkan fadhiyana waa educationist dad macallimiina dad iskuulo ma aragtay jooga maadamta iyadana mahad gaar ayaan u celinayaa senataha ee Soomaaliya ka imaatay inay nala joogtana way fiican tahay kulley waxay ka mid tahay shirarka loo baahan yahay noocyadan oo kale in la qabto Cabdi Fataax ba mahad gaar ayaan runtii u celinayaa inuu isku dayayo inuu soo nooleeyo dhaxalka dhintay ee ummadan ay leedahay dadka educationistaha ah ama dadka researchka sameeya oo baxtiga sameeya runtii adduunyada oo dhan waxay isku waafaqeen luqadda hooyo ama afka hooyo inay qofka caqligiisa ay horumariso inay qofka fikirkiisa ay dhisto oo luqadda hooyo ay ka duwan tahay luqadaha kale dhanka muhiimadda markii la fiiriyo talabaad waxay yiraahdeen luqadda hooyo waxay qofka ku xiraysaa dadkii qaraabadiisa ahaa awoowayaashii inuu la hadlo dadkii kale oo maaragtay la dhashay qaraabadii inuu maaragtay la communicate garayn karo oo uu la hadli karo luqadda sideedana waa runtii stoorka weyn oo dhaqanka lagu xifdiyo ummad dhaqankeeda waxaa lagu xifdiyaa luqadeeda lagu xifdiyaa meesha wax kasta oo annaga dhaqan oon leenahay ama geel ku saabsan ama maahmaah ku saabsan ama hataa taariikhdeena markii la yiraahdo waxa lagu xifdiyaa taariikhdeena waa afkeena way مثلا tusaale ahaan markaan bixino buugtii uu qoray ingiriiska uu qoray markii uu ka sheekeynayay sayid maxamed cabdulla xasan buugtaas waxay sheegayaan sayid ma dhahayaan maad muulay leeyahay wadaadkii waalna meel dhahaysana waa jirtaaba inuu terrorist iska ahaana meel dhahaysana waa jirtaa saasoo kale hataa maamaaw markii laga sheekeynayo taariikhdii maamaaw waa dadkii u soo halgamay xorriyadda waddankan Kenya waa buugta ingiriiska uu qoro dhan waxaa ku qoran maamaaw inay terrorist ahaayeen waana dadkii beerahooda la qaatay kukuyada ahaa oo runtii dagaal u galay sidii waddankooda iyo beerahooda ku soo dhacsan lahaayeen markii luqad kale lagu qoro taariikhdaada waxaa lagu samaynayaa inxiraaf waa la bedelayaa iyadii oo dhan taariikh beena ayaa laga qorayaa sida aawadeed horta taariikhdu runtii waxay store u tahay ama luqadda aan iraahdo waxay store u tahay taariikhdeena dhaqankeena mahmaahdeenna waxyaabahaas oo dhan oo runtii aad iyo aad annaga noo anfacaya tan kale waxaa la ogaaday ilmaha yar markii uu wax ku barto luqadda hooyaha horta wax lagu baraa markii luqadda labaad oo ama English ama Kiswahili aad rabto inaad wax ku barto waa inay jirtaa luqad gambar noqoto oo luqadan cusub oo hadda imaatay ay ku sii fariisato ayaa loo baahan yahay haddii aad laakiin dhahdo ilmaha yarka ah xoog ayaan maskaxdiisa ku gelinayaa cilmigan aad tiraahdo arrintaa dhibay keenaysaa canugana dhibay runtii iyay u keenaysaa marka waxaa fiican cilmigu kursi uu ku fariisto u baahan yahay kursiga uu ku fariisanayo inay luqadda hooyo ay ahaato luqad kale markay imaatana oo maskaxdaada ay imaato inay marti u noqoto luqadaadii hooyo oo horey u jirtay taas ayaa runtii ilmaha u wanaagsan waxaadna ogaataa tusaale ahaan ilmaha wax ku bartay afkooda wax ku bartay waxaa ka mid ah ilmaha Tanzania ka soo qaad waxay wax ku bartaan Swahiliga Tanzania markaan joognay jaamacadda Uganda aan joognay English ma yaqaanin Swahili ay ku hadlaan hataa baarlamaankooda Swahili looga hadlaa laakiin markii la yiraahdo biology iyo chemistry iyo physics iyo xisaab Tanzaniyaanka number 1 ay galayaan number 1 ay galayaan somakas maxaana yeelaya luqadooda ku soo bartay meesha annaga caruurta ka imaatay Northeastern ka imaatay Wajeer iyo Garissa ka imaaday Ingiriiskii iyo wixii way yaqaaniin laakiin xisaab iyo physics iyo chemistry caruurta waa ka cararaan
labaatankii sano anu aan secondary meesha ka dhigayo waa garanayaa ilmuhu soomaalida hor dhulkaa jooga ma jecla sayniska ma jecla xisaabtana ma jecla daalamaa kuwii muqdisho joogay ilaa aniga muqdisho aan kusoo koree aad waxaan annaga u jeclayn xoogga saari jirnay hataa primariga markaan ku jirnay saynis iyo xisaab wixii adagaba kuwaana waxay leeyihin aad bay u adag tahay marka lama akhrisan karaa kolley waxaa laga yaabaa luqaddii marka inay tahay way dhici karaysaa ka waran haddaan ku idhaahdo aljabra haddaan ku idhaah iyo haddii aan ku idhaahdo jajab haddaan ku dhaho labadaa keed fahmaysa jajab haddii ku dhaho waa wax la jejebiye adiga maskaxdaada way sawaran kartaa wax la jejebiye siday u egyihiin laakiin markaan aljabra kugu bilaabo yacni wakti bay qaadanaysaa inaan ku fahamsiiyo aljabradaas iyo macnaheeda marka luqadda runtii anigoon ku dheeraanayn muhiimaddaas gaarka ayay leedahay qofkana runtii jiritaankiisa luqaddaasay ku xidhan tahay chinese ood aragteen luqadooday wax ku bartaan turkiga inay luqad kale ku hadlaan ma ogola maxaan ku idhahdaa ruushka luqadooday wax ku barteen ummadahaasoo dhan luqadooday wax ku bartaan laakiin afrikaankii la gumaystay oo ingiriiska uu gumaystay ama reer yurub ay gumaysteen haddii aad afki hooye ku hadasho waxaa la dhahayaa venaculas ku hadlay waaba lagu caynaaba venacula yuu ku hadlay laakiin nin chinese oo afkiisa ku hadlaya haddii la arko lalama yaabay nin spanish oo spanish ku hadla haddii la arko waa la ammaanaya ninka haddii faransiis iyo faransiis ku hadlana waa la ammaanaya laakiin adi haddii aad afka hooyo adoo ku hadlaa lagu arko waxaa leeyahay kan venacula ku hadla taas naftirkeeda runtii nooca isticmaarka ka mid ah ayay tahay marka waxaan leeyahay oo hadalkayga kusoo gebagabaynayaa caalamka oo dhan iyo kenya weliba hadda marka u dambaysa kenya waxay qaadatay siyaasad ah ilmaha galaaska saddexaad ilaa laga gaarayo in afka hooyo wax lagu baro macallinku haddii uu caruurta xisaab baraayo medium of instruction inay noqoto afka hooyo inay noqoto hadduu science baraayo inuu afka hooyo ku baro haddii laakiin soomaalida north eastern joogta dhibka jira wuxuu yahay soomaali macallimiin hadda waa iska yaryihiin aad bay u yaryihiin marka ninka adiga macallinka ku ahba hadduu mukaamba yahay ama kukuye yahay ma dhegi karaysaa af soomaaliya ugu barmaad leedahay macallinba ma haysatid marka siyaasaddii way qoran tahay oo buugta dowladda waa ku qoran tahay laakiin ha la hirgeliyo markii la yidhaah hirgelintii way adkaanaysaa sababto macallimiintii soomaalida ahayd ee hirgelin lahayd aad iyo aad yay runtii u yaryihiin isliina waxaan u malaynayaa waa sidaas oo kale iyadana kama duwana nimankan privateka meesha ku haysta macallimiintiina waxay u badan yihiin aan u malaynayo dee raggan aan naqaano raggaasna hadda rag maanta af soomaali ee la dhahaya maaha laakiin mitinkan muhiimaddiisa waxaa ka mid ah fikirkaayna aan bedelno attitude-ka aan bedelno waxaan aan leenahay soomaali naga daaya ha la duugo oo kale aan ku dhowaanay annaga yaanan isduugin dhaqankeennana yaanan burburinin diinteennana afkanay ku dhisan tahay soomaalidu halkan waa deganaan jirtay 60kii 50kii 40kii soomaalida way deganeen dhulkan aw soomaalida xaggee aadeen dhaqan waxay dhex galeen kuwana iska dhex galeen anigu waxaan aaminsanahay hadda waxa inta nagu haya diinta waay laakiin luqadda maaha waxaa nala dhigan jiray jaamacadda anigaan garanaya uganda wiil ku dhashay uganda oo dadkan madmadow bagaandhada dhexdooda ku dhashay waana nin soomaaliya wejigiisa waa soomaali kulli waa soomaali laakiin annaga gruubkayna nooma iman jirin xataa ninkaas ururka ardayda soomaalida ka mid mahayn annagoo ka imaanay maaragtay NFD ka imaanay Ethiopia hal ururaan samaysanay oon leenahay ururkan waxaa lagu dhisay ethnicity wax la yidhaha qowmiyaan ku dhisanay waana jaamacaddana waa ogolaatay laakiin asaga naguma soo birin intaasna maxaa yeelaya nabad miya hataa kuma dhegi karo luqaddii waa maxaa waay marka markii luqadda dadkiina aad garan weyso maxaa samaynaya adaan ku weydiin dee waa iska dhumaysa waa tegaysaa markaas marka dadka waxaan leenahay culummada iyo akhyaarta iyo waxgaradka iyo ragga halkan fadhiyo aqoon-yahanka ah dib aan ugu soo noqonno cabdifataax waa mahadsan yahay khayr allah siiyo luqaddeenna waxay ka tarjumaysaa jiritaankeenna ayay ka tarjumaysaa dhaqamadan hadda aan ku faanfaanayno dhaqamo waxaa jira ay soomaalidu ku faanaan waana dhaqan dhinacna inuu negative ka yaha laga yaaba laakiin positive ah waa isla qabweyn yahay isla qabweyninkan uu isla qabweyn yahay intee laga keenay mataqaanaa dhaqankaa laga keenay soo ma dhaqankuu ka imaaday laakiin midka bungoma ku dhashay oo halkaas weligii ku koray oo yaraantiisa kaa inuu isla qabweyn yahay hadda makula tahay islama qabweyn waa mid iska miskiin oo dadka meesha jooga uun dhaqankooda iska qaata waay laakiin midka baadiyahan ka imaada isagoo baadiye ka imaada uu leeyahay waxaani waa maaragtay kuwan dhan waa gaala dadkan oo dhan uu yasaayaa uu leeyahay waxaanu dad ma aha ku ingiriis wax cad hadduu arkay wuxuu leeyahay waxaan dabada cad naga daa warkiisa ku kaloo hindiya hadduu arkay wuxuu leeyahay war kan
wuxuu yahay ma jirto aniga yaraanteydii bulshadaasaan kusoo dhex koray waa xasuusta yacni waa isla weyneen waxaan dhehi jiray anaga ciyaal banaadiraan la dhaha ciyaal gobolna waa ka sarreyn aad baana isula qab weyneen carabtana waxaan u arkaynay maaragtay daanax inay yihiin oo dad la yasa ay yihiin hindigana dad macnalel uma arkayn ingiriiskana nin oday ahoo soomaali ahoo mar gaalkan ingiriiska la hadal la yidhi hadal bu wuxuu ka bilaabay waryaa doofar iska warran uu yidhi hadalka intuu ka bilaabay meeshaasuu ka bilaabay intee ka imaatay isla qabweyninkaas mataqaan dhaqankii baa keen waxaa kaloo dadkan ay isweydiiyaan social lifekan soomaalida ay leeyihiin hataa madowgan waa isweydiyaan oo becsharada iyo businesskan ku saabsan iyo iskaalmeyna ayagoon iskuul tegin intee dhaqankuu ka imaada waa dhaqankooda waa noloshooda been miya waa dhaqan waay waxaas ma iskama imaan baalama ninka turkana haddaad magaaladan keento waa inaad horta 6 bilood iskuul geyso markaas kadib baa kiyos loo dhiibi karaa oo la dhihi karaa kiyoskana lagu dhiibaya inta ka horeysa meel looma dhiibi karaa kan geela ka imaaday bil hadduu inta joogo meel baa loo dhiibi karaa maxaa keena karti keliya ma dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ability waay ay dhahaan laakiin ability keliya ma dhaqanka iyo luqadda iyo ummadnimadu qayb weyn bay ka tahay arrinta ayada warka waa ku dheeraaday raalli ahaada anigu siduu ninkaas sheegay wadaadu markii hadal la yidhaha waa wacdinayaa yaanan ku dheeraanin waxaan leenahay dowladda Kenya siyaas ahaan waa ogoshahay luqadan inaan iskuulada barno annaga marka inaan sidaan istaraatiijiye inaan la imaano way qaabkii arrintan aan ku hergelin lahayn waa inaan qaabkeeda la imaano way laakiin haddaad iskuulka iska dhex fadhiyo aad tiraahdo anigu onjaroga aan ka sugayaa inuu ilmaha af Soomaaliga onjaroga ilmahaaga af Soomaaliga kuma baray walaa dhaqankaagana ma baray isagu siyaasadii waa qoray ilmahaaga dhaqanka baru ku yiri kukuyo waa bilaabeen inay dhaqankooda hadda inay galaaska saddexaad afkooda ilmaha ku baraan dadka hor boodaya ilmaha afkooda waxa lagu baray waxa kamid ah ninkii qoraagi weynaa oo wada taqaaniin Ngugi wa Thiong'o wuxuu leeyahay waa in afka kukuyada waa in iskuulada lagu dhigaa ilaa galaaska saddexaad hataa maan ilaa afraad isaguna buugaag badan oo qoray hadda afkii kukuyadu ku qori haya annagana afka nagayaan duugayna marka waxaan leenahay waa inaan la imaanaa istiraatiijiye iyo qaab wanaagsan oo caruurta af Soomaaliga lagu baro mahmahda Soomaalida iyo gabayada jiritaankooda iyo dal inay leeyihiin inay dad leeyihiin لأن waxyaabaha insaanka insaannimadiisa lagu garto oo xayawaanku uga duwan yahay waxa kamid ah maskaxda iyo luqad insaanku iskula xiriiro laba dameero isla hadlaysa ma arkaysid laakiin insaanku waa isla hadla xayawaanku laakiin isla ma hadlo walidaalika walaalayaal waxaan leenahay luqadan aan kor u qaadno sidii aan kor ugu qaadi lahaydna istiraatiijiyadeeda iyo waxeeda aan la imaano annaga education providers educationka annaga hagaajina annaga sameeyna iskuulada annaga iskale buugtina waa kuwan macallimiintii aan train garayno si ay luqadii dadka ay u baraan waa isku dayna aniga Cabdifataax Ilaahay khayr hasiyo inaan Gaaraysa iyo Mandera ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa Wajeer haddii ay noo suurta galayso Ilaahay noo masaamaxo roolkaas oo dhan marka inaan ugu yeerno inay luqadooda dadkaasu ay bartaan oo ay akhristaan oo marka ay ka faa'iideystaan mustaqbalka si tacliintooda ay u tooso intaas aan ku gabagabeynayaa waxaan yeerayaa ustaad nabadoon mursal maxamed xasan bal isna inuu kelmad ka yiraahdo kooban awalan waxaan mahadda kuwaad u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sahlay xafladda quruxda badan oo afkeenna hooyo lagu horumarinayo isugu keenay talabaad waxaan u mahad celinaynaa cabdifataax cabdilaahi oo arrintan dhabarjebin weyn iyo mas-uuliyad weyn iyo maaragtay mas-uuliyad badan iska saaray isagana waan u mahad celinaynaa iyo bahda la shaqaysa haddaan ku soo dhowaado munaasabadda maanta waa munaasabad muhiima oo ah afka Soomaaliyeed sidii loo hirgelin lahaa buugaagtii loo heli lahaa macallimiin fiican oo afka Soomaaliyeed taqaan oo ilmaheena maaragtay iskuulaadka kuwa yaryar ilaa xanaanada hoose laga bilaabo sidii loogu heli lahaa Northeastern ha ahaato Nairobi ha ahaato dhulkeeni Soomaaliyeed isaga waaba caadi waa dhulkiisii laakiin intayna waynu joognay sidii aynu dadka ugu baraarujin lahayn madaxdeena مثل maamul goboleedeena waxaynu dhan insha Allah taala aan ka wada qayb qaadano ahmiyadna aynu saarno dhalinyarada waxaan oran lahaa afka Soomaaliyeed
ama Kenya ku dhalo ama Soomaaliya ka imow af Soomaaliga waa nagu yaraaday xitaa markii maasiyada isku qorayaan wada yaabaysaa waxyaalo isugu qorayaan English af Soomaali baa la isku daray adeer buu rabaa inuu qorso adeer buu qoraya adeer waa nin ilaa jaamacad ka soo baxay marka at least aan barano af Soomaaliga sida loo qoro sida loogu hadlo waxaad arkaysaa laba qof oo dhalinyaro ah oo mutacalimiin oo Soomaaliya oo isla sheekaysanaya af Swahili ama English ba ku wada hadlayaan waxa macquul ahayn inaba aan arkayn qof kukuya qof kale kukuya la hadlaya oo af Swahili kula hadlaya ama English waa ceeb agtooda afkooda ku wada hadlaya hadii jalo la hadlayo afkooda kula laakiin Soomaaliga waxaad arkaysaa laba nin oo waaweyn oo mutacalimiin ah oo af kale iyagu lahayn ku wada hadlaya waana ceeb aad bay ceeb u tahay dhalinyaradeenna aan ku baraarujino sidii af Soomaaliga u baran lahaayeen ugu wada hadli lahaayeen ugu sheekaysan lahaayeen wax ugu qori lahaayeen wax ugu akhri lahaayeen hawsha aynu xoog iska saarno haddaan waalidka nahay barakallahu fiikum أولاً ولكن إنجنير عبد الفتاح عبد الله موسى فري قاروين وحلنا هاي أمد الصوماليات وحو كسو بيريي شيء رنتي لوبهنا أو أف صومالي إن دبلو عصبونيسيو كلي صوماليا ودنك صوماليا إلا صدن iyo 2 sano wax ku dhow buu burbursan yahay iskuuladii iyo manhajkii uu baaba'ay waxaa ka dhacay bililoqo wasaaradihii waxbarashada iskuuladii makaabtirtii wax lagu kaydin jiray madxafkii wuxuu dhan waa la qaatayo sokor baa lagu duubtay buwaagtii wixii la qoray hadda marka Cabdulfataax inuu soo celiyo runtii waa arrin ummadda Soomaaliyeedna anfacaysa isagana insha Allah ta'ala u noqon doonta khayr u socda waxyaabo badan buu na xasuusiyay adaan nahay dadkeena Soomaaliyeed sheekooyin xikmad badan af Soomaaligi iyo sida loo qoro iyo xarfihiisa intay u qaybsamaan annagu hadda intaan meelahan joognay 30 sano af Soomaaliga hadda uu naga lumay runtii inaad marmar hadda dhageysato waan akhriyaa marmar gabayada iyo sheekooyinkii hore ma aragtay nala soo barayo ama waalidiinta noogu sheekayn jireen maalintaas waxaan arkay wiil yar oo Gaarisa jooga nin saaxiibkay baan gurigiisa ugu tagay waa nin yar oo adiga 7 jir ah wuxuu ku dhashay Gaaris hooyadiina Gaarisay ku dhalatay qaxootiga meelahan Dadaab wiilkii wuxuu ka sheekaynayaa dhagdheer waana gabadh dhashay gabar yar waa oo runtii 20 ka aanan gaarin waxaan rir abtiyaa ku baray hooyo ay bartu yiri dhagdheer waxay joogtaa buuraha hargaga ayay ku nooshahay ilaa ma ku cabsiinaysa habeenkii inuu banaanka u baxo ay diidan tahay oo islaan dhagdheer laho dadka cunaysa oo meelaha ku jirta waalidiinta markaa qaarkood hooyooyinka khaasatan sidii af Soomaaliga u danaynayaan ama ilmaha sheekooyinka lagu cabsiyo ama kuwa lagu seexiyo hadee dadkana meelahan soo galay ama naga sii shisheeyeen North America aaday iska daayaga kuwa say wallahi waxa ay dhalaan ilaahay soo celi iyaga garanaya waxay barayaan iyo waxa lagu cabsiyo waxa lagu hurdisiyo waxa caanaha lagu siiyo waxa naaskan lagu siiyo af Soomaaliga marka in la qoro wuxuu keenayaa in diinteennii ay asal yeelato qofka Soomaaliga luqad kastoo diin ku barato waa sida macalinka uu sheegay Abdul Wahab asalkii hadaanan garanayn oo hooyood u dhalatay oo af Soomaaliga diinta siday tahay hada uma fahmaysid diinteena annaga af Soomaaliga ku taaganta Ingiriisi kasta u baro meel kasta ku gaar nin Soomaaliyeed hadaa tahay waa inaad af Soomaaliga taqaana diintan hadaa rabto inaad barato way culimadeennii iyo kuwa hadda jooga kulli af Soomaaliga wax ku akhriyaan af Soomaaliga iskuulada insha Allah ta'ala in xisad aan siino isku dayina macallin Cabdulfataaxna waa iska warqabnaa injineerka iskuulada uu noogu yimaada buug kasta uu soo saarana ونو كان سي أن منهج كودرنا المهنة هذا سكولة ذوكله وحنكون في عنا
waxa weeyaan 99% waxa annaga aan hayno hadda islii waa Soomaali waalidiintaan ugu la dagaalamaya oo oranaya af Soomaali baad ku hadashaan Ingiriisi Swahili maad ku hadashaan adiga kale waxay leeyihiin iskuulada kala geysanaynayo maarag Kenyaanka ay leeyihiin oo Ingiriiska looga hadlo wiilkay waxaan rabaa Ingiriis inuu ku hadlo war Ingiriiskana way ku hadlayaan luqadoodana way garanayaan nagana badiyaan imtixaanada hadda KCPE daan u fariisanay iyo KCSE da midkii 8ka iyo key form 4kaba wax naga sareeyay male iskuulada Soomaalida ereyadan Kamukunji iyo Starehe labadaba iyaga ugu sareeyay af Soomaaligana way ku hadlayaan marka waxaan dhihi lahaa annaga maadaama aan nahay dadkii education sector-ka ku jiray arrintan implementation baan ku samaynaynaa waan dhaqangelinaynaa macallinkana horeyna waan ula shaqaynay insha allahu tacaala bal annagaa ka baranaynaa erayada qaarkood markaynu u adkaadaan macallinka waa weydiinaa maalin xas waan akhrinayay xadiidka jumcada oranaya diidaya atakhati riqaab annaas dadka qoortooda in laga tallaabsado marka qoortii haddaan jamac ka dhinno maxay noqoni qoorahooda miyay noqonoo wax kale noqonaysaa mase qoorar bay noqoni mase waa keliyo qoor keli baa lihi dadka qoortooda ama dadka qoorkooda ama dadka qoorahooda miyaa la dhihi macalin Cabdifatax waa ku wareerne jamac wuxuu noqdo طيب ها waka dadkii masjidka oo dhan baa waxay yiraahdeen ninba meel buu ku tuuray ninba sidaan uu yiri eraye markuu adkaanaya oo ilmaha la doonay in la baro oo loo fasiro ayaa jira arrinkan marka jazaahullahu khayran walaalkeen ilaahay garabkiisa ha galo hawshaad wado waa hawl ummadda Soomaaliyeed dhammaan aad u qabanayso shanta Soomaaliyeed NFD ka bilow Ethiopia gee iyo Soomaali galbeed Djibouti gee South Somalia Soomaalida wenge intoo dhan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay ka faa'iideystaan annagana waa kula garab taagana haddaan nahay macallimiintii ilmaha wax barayay ama maamulayaashii hawshaana ha la xoojiyo af Soomaaliga iyo barashadiisa ilmaha aan barno mahmahayada intaan gadanno ilmaha guriga aan u dhigno buugta ay akhrinayaan sheekooyin baa loo diraa ilmaha buugga soo gata oo soo akhri baa la historigaas annagana inaan ugu darno af Soomaaligi sheekadii ma aragtay ciyaal shiidaad oo xikmadda ay ka buuxday oo ninka waxay leeyihiin fulay ma ahayn waa wuxuu lahaa war ha ka haro iyo xikmad ha ka harto ha sidaas uu ahaa waa comedian buu ahaa dadku ka qoslin jiray taana waan dhihi lahayno ilmaha buug Soomaaliya guriga inuu u yaalo way fiican tahay marmarba iska akhrinayaano ilmaha wax akhriya khaasatan qiraa'ada jecel inay ku weydiiyaan baa dhici karto akhristaan waa ku faraxsannahay martiqaadkan aad noo fadhiisayna insha Allah tacaala iyo buugtan aad bandhigayso waana kala qayb qaadanaynaa horumarinta afkeenna hooyo ee Soomaaliga ee asalka ah ee diinta ku taagan ee lagu baraaray ee diinteena aan ku barannay waxay ku tusaysaa hodantinimada afkeena ustaadka buugta uu qoray waxa ku jira buug mahmaahda oo halka yaala nabadoonka agtiisu yaala buugta dhamaana xagga hore ay yaalaan iyagoo aad u qiimo jaban qorayaasha Soomaaliyeed iyo dadka bulshada wax ku soo celiya aqliga iyo dhaqaalaha iyo aqoonta iyo waqtiga ka gala ma maleyn kartaa waxa u soo noqdana waa haday ugu badato waa golahan inta dadka inta isugu yimaadaan oo runtii in yar laga dhigeysto marka dadka waa in lagu dhiirigeliyo buugta waa in la iibsado sidaas la mid ah waa in ubadka loo iibiyo sidoo ustaad Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani uu ka dhawaajiyay khayr Allah siiyo inuu isaguna runtii kaalintaas iyo kelmadaas uu qaatay waxaan u yeerayaa senator Zainab Ismaaciil oo iyadana runtii doorkeeda iyo kaalinteeda ka qaadan doonto soo dhawaad baan u faraxsanahay xafladan nooleynta afka Soomaaliga oo runtii u baahan in qof walba ama dadku kooxay u qaybsan yihiin culimo aqoon-yahan jaamiciyaal dhinac walba in door walba la qaato oo afka la nooleeyo waxyaalaha keenayay hadda culimadu ka sanqariyeen dadka af Soomaaliga wax ku bartay in Ingiriisigu u fududaado Ingiriisigu cilmi ma ah waa luqad markaad luqadaadii ku baratid wax buuxa oo sayniskii ah biology-gii wixii oo dhan xisaabtii way ku fududaanaysaa inaad sii anba qaado
hadda bishii lasoo dhaafay baarlamaanka soomaaliya labada aqal waxay ansixiyeen 3,000 oo macallin in la kordhiyey mushaharkoodii oo lagu daray macallimiin ahaan loo kordhiyey iyo arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada in maaragtay dhaqaalo badan loogu daray iyo amniga waxaana la arkay inay muhiim tahay in waxbarashada kor loo qaado oo aan la helin ciyaal ama dhalaan waxbarasho la'aan ugu darxumaysan dalka Soomaaliya waxaan rabaa meel walba la joogana dadka Kenyana hadda dadka Soomaaliya jooga magac bay idin bixiyeen oo sujuud in la iska reebaa la rabaa anu mana jecel meesha la yiraahdo meelaha afka Soomaaliga looga hadlo dadka Soomaalida ah ayaa ku nool dadka Soomaalida meesha ku nool yihiin afka Soomaaliga waa looga hadlaa runtii buugtii manhajkii Soomaaliya wuxuu ahaa manhaj mucjiso ah anigu dadka raadiyay baan ka mid ahaa markii burburku dhacay dhaqaale baynu u burburnay waa la urursaday dad baa ururin jiray gadi jiray hay-ada ayaa guray waxa loo gurayna waxay ahayd in aasaarta meesha laga saaro in laga saaro taariikhda meesha marka haddii aan helnay dad soo nooleeya bishii la soo dhaafay iyadana masxafkii afka Soomaaliga ayaa la furay oo dib loo dhisay waa arrin guul ah marka waxaan leeyahay kooxa loo qaybsan yahay culimada waxa laga rabaa siiradii ambiyada oo dhan quraanka mar hore wuu jiray tafsiir in la soo xitaa ruqyada in la soo gaagaabiyo oo maaragtay turkiga waxaan ku arkay runtii aad bay waxay culayska u saareen afkooda inay ku turjumeen taas waxay u sahlaysaa sidaa sheegaysaan hooyadii inay ilmaheedii siiradii u akhrido oo maaragtay ay u fududaato in af Soomaaligii ilaa inagu waxaan nahay dad runtii 100% islaam ah diintooda jecel in la sii fidiyo baa meeshii sii sahlanaanaysa marka arrintaa waan jeclahay waana maaragtay dadku ma wada yaqaan luqadda carabiga ahayd afkii Soomaaliga waa la yaqaan runtii turjumaadda iyo in xitaa maaragtay way u fududaanaysaa arrinta af Soomaaliga waa marka qofku fariin dhiibayo waxa jirtay bugaagtii hore wiilkiisii u sii dhiibay alaab marka bishu waa 30 buu yiri baliguna waa buuxaa marka haddii hilib bagafa oo balbalaaran buu u sii dhiibay oo 30 xabba ah wiilku alaabtii loo keenay waa furay waa gartay inuu 30 yahay hadday wax ka maqan yihiinna fariin buu ugu celinay macnaha af Soomaaligu waa af qani ah waa af suugaan fara badan leh waa af maaragtay mahmaayihiisa iyo xigmadihiisa iyo cajiib ah in dib loo soo nooleeyo oo maaragtay dhulka Soomaalidu degan tahay oo dhan uu ka noqdo wax hal mar loo wada kaco runtii oo bugaagtii hore haddii la helayo waxyaalaha ardayda ka kharibmay af Soomaaliga kaliya ma ah laakiin ardaygaagii cunugaagii annaga waxa nagu dhacday waxa u diraysaa iskuul uu ku imaanaya Soomaaliya intee webi leedahay ma yaqaan wuxuu yaqaanaa carabta buurahooda waxa ka socda manhaj laga keenay Sacuudiga ama Imaaraad baa loo dhigay waxa loo dhigay manhaj ka yimi meel kale kuwa East Africa loo dhigaa ugu roonooday Afrikadii waxa galaysaa maaragtay ama xagga islaamiga marka loo dhigo meelahaas ka fiicnaa marka in la soo nooleeyo taariikhdii wadanka lagu nool yahay loo dhigo hadda taariikhda qof kale taariikhdaada si fiican u turjumi maayo laakiin adigu taariikhdaadii tii East Africa oo kale halkan oo mamogii iyo history-ga la soo maray haddii af Soomaali lagu qoro waa wax dhan tii Soomaaliga ahayd laftirkeedii way wada luntay halgamayaal badan baa jiray wax fiican baa la soo maray in maaragtay afka Soomaaliga runtii wuxuu ahaa wax maxamed siyaad bar waxyaalaha in loogu mahadnaqa sababtoo afka Soomaaliga haddaan la qoreen waagi hore gabayga waa la xafidi jiray saasaa la isugu gudbin jiray waa la qoray campaign badan buuna ku qaaday dadka oo dhan miyay magaalo la gaarsiiyay wuxuu ahaa barnaamijyadii ugu fiicnaa oo ka hirgalay Soomaaliya 70-aadkii oo la xasuustay marka wax haddii wax kharibmeen wixii kharibmo kaliya in la eegay maahe waxa idiyada laftirkeeda in taariikh fiican looga dhigo waana in la xoojiyo waan uga mahadnaqaynaa qoraaga dib u soo nooleeyay waanan jeclaan lahaa in la baaro manhajkii in la helo bal wixii meelahan ku soo firxaday kulay Soomaaliya waa laga guuriyay oo xisaabaadka oo kale waxa jiray maaragtay qofku wuxuu ku fahmayay marka lagu yiraahdo cagadan hadda muggeeda waxba ku jira waxa jiray mugga dhulunubo badkeedu yahay inta soo saar meesha ku fadhida iyo wixii ardayga waa fududeed waa wuxuu garanay laakiin marka la yiraahdo aljabrada oo kale iyo xisaabaadkaas inay ku adkayd alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii bilaash wax ku bartaan ahayn oo maaragtay luqadda ka faa'iideystay waxaan jecelnahay runtii in ciyaalka kalena ay helaan fursadahaas
waxaan leeyahay waalidiinta ingiriisigu ma aha cilmi waa luqad waana fududahay in la barto laakiin cilmiga ilmaha gelaya oo afraadka wixii naloo dhigay shanaadka baan xasuusanaa oo taariikhda kugu reebaya waa wixii afkaaga hooyo lagugu dhigo marka waana mahadsantihiin waana salaamayaa dhammaan culimada iyo aqoon-yahanka waana u mahadnaqaynaa qoraaga jazakallahu buuggan af soomaaliga waa buugtii la qoray 1972 waxaa laga joogaa hadda 51 sano dadka halkan fadhiya badanaa dhalinyaro u badan yihiin oo anigu ku jiro 50 sannadood iyo kadib baa buuggan dib loo habeeyey waa buuggii afka soomaaliga kalaaskii labaad dugsigii macnaha hoose aftax soo dhow asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxay ila tahay salaantaydii iyo hordhici waa hormarsadayo inaan iska gudageli doono maadaama waktiguna aynu beeqaaminayno xoogaa ina ku soo kooban yahay aanna rabno in ciddii su-aal qabtaa inay si ay jaanis u hesho aniga magacayga buugtu ku qoran yahay oo kolley qofkii buugta wax ka qaatay ama wax ka arkay wuu garanaya kii aan qaadano waktigu u saamixin oo laga yaabo duruufa jira awgood inayan gacantiisa soo gelinna waa u sheegayaa magacayga waxaa la dhahaa cabdifataax cabdulaahi muuse ferey baa laygu naanaysaa aabbahayna gabyaabuu ahaa abwaana oo qaar weyn baa la oran jiray ninkii garanaya waa garanaya ninkaan garanayna inuu maanta barto baan rajaynayaa abwaanadii hore soomaaliya uu ka mid ahaa allah u naxariistay hadda wayna ka hooseeyaa waana buugna waa ka qoray aanoo ilaa 60 gabay oo wax loo tiriyey iyo wuxuu tiriyey isugu jira oo 19kii oo aan Soomaaliya tagay ka soo ururiyay ciddii wax ka haysay ama nooleyd markaa dad badan oo aan wax ka qorayna wayba dhinteen allah u naxariistay oo karoonihiba waxna sii ducuntay waxna sidoo kale ajashooda u timi taariifadayda anigu qoraabaan ahay arrimaha bulshada wax ka qora waxaan qoray buug badan oo isugu jira dhammaantood waa arrimaha bulshada laakiin waxay isugu jiraan waxbarasho iyo arrimaha bulshada oo kaleeto oo ay ka mid yihiin dhinaca siyaasadda leadershipka wax ka qoray hogaamiyaha islaamiga qoray buug la yiraahdo hogaamiyaha toosan iyo tilmaamihiisa oo u malayn maayo hadda inay wax dib loo daabaco u baahan buuggaas waa islaami oo wadaadkan umula ayaa tafatiray aayad iyo xadiis baa reference u ahaa oo marjac u ahaa ka leadershipka waa qoray laba buug oo sarbeebana waa qoray oo buug hadda halkan yaallo oo ka hadlaya waaqica iyo Soomaaliya buugta hadda ma qorin laakiin waqti aan saa u sii fogeyn oo 5 sano 6 sano ka horeysa baan qoray labadaba isku dhawaayeen buugna waxa la dhahaa waraabaha iyo mahadhadu reebay oo halkan uu yaala oo banaankana waa laga helaya buugna waxa la yiraahdo dhibta habar dugaag iyo dhaawac u qabo waa ka tarjumaya baan u maleynayaa magacu inii qofka af Soomaaliga yaqaan uu garanaya kan kalena tafsiir buu u baahan yahay laakiin Jaanis aan hadda halka ku sharaxo uma hayo markaan u soo noqdo buugta aan ka qoray waxbarashada buugta aan ka qoray waxay u badan yihiin sheeko xariir iyo syllabus ama manhajkii dawladdii militariga ahayd ee afka qortay ay diyaarisay guddidii 22 ahaa oo uu madaxda u ahaa guddoomiyaha u ahaa Dr. Saalax ee haystay jaamacadda amiirkii jaamacadda baan buugtaasaan waxaan ku sameeyay dib u qoris buugta ilaa secondary oo afka dhinaca afkan anu ka raacay maadaama afku ugu muhiimsan yahay oo in isaga horta loo helo wax la garan karo ama la raaci karo ama gambarkii uu sheegay sheekha ama macallinka Cabdiwahaab khayr Allah siiyo walaalkay Cabdiwahaab aad baan ugu mahad celinayaa wax badan buu ila qabtay haddana insha Allah ila garab taagan yahay halgankana inuu qayb ka noqdo buu diyaar leeyahay loo galaayo dib u nooleynta afka waana wax inagoo dhan inoo yaala ka markaan ka soo noqdo buugta tanu horta anu waxaan qoray dugsigii dhexe waa dhameystiray secondarygiina haddaan qoraa oo suugaantii dugsiga sare ah waana dhammaystiraya insha Allah kuwa haddaan dhameeyo afkana waxaan jeclahay scientific inaan iyagana wixii aan ka gaari karo
ka soo qabto iyagana weliba aan rajaynayo in aan dugsiga hoose aan qoro afartii scientific ahaa iyo saddexdii sayniska ahaa iyo xisaabtii baan rajo weyn ka qabaa insha allah haddii waqtigu ii saamaxo waxaana waa hawl qaran oo qof qabanaya haddaan lala qabanna wuu banjarayaa dadka loo qorayaana waa idinka iyo waxaad dhasheen iyo waxaad dhali doontaan waxa aynu wax ku nahayna waa afka ummad haddaad aragto qoomiyad magac leh afkay magac ku leedahay maha qoomiyaddu muuqaalka waxa dadka magac u yeelaa waa afka dowlad kastoo dhisan magacoodu waa afka china waa china waa afkiisa turki waa turki waa afkiisa ingiriis waa ingiriis waa afkiisa waad aragteen dowlad kasta oo magac leh waxa magaca wataa waa afka ee maaha dadka afkuna waa kan ina midaynayo linkiga isugu keenhaya dhaqankeenna diinteenna waxaa isku haya labada waa afka haddii afku meesha ka baxo dhaqankaa ka baxaya dhaqanku hadduu ka baxana diintii baa ka baxday qof waliba qofku afgaranayaa buu raacaya waxaa jira dad fara badan oo oo ummado qaran jiri jiray oo meesha ka baxay sababta ka saartayna iyagii ma tirtirmin ee ummaday ku kala biireen afafkooda intay kala qaateen halkaasay meesha uga baxeen qoomiyadda meesha uga dhamaatay way nool yihiin way jiraan laakiin ummad kale isu rogeen shaar kale qaateen marka afka in la nooleeyo shay muhiima weeyaan aniga halgan badan baan buugtan usoo maray markaan xaqiiqada u daadego dhib badan baa iga soo maray ururintoodii iyo qoristoodii iyo isku dubaridkoodii iyo hagaajintoodii waxaa kaloo jira qaamuuskii oo dib isagana aanu qornay oo inkastoo nin baa maalgeliya laakiin teebinka iyo garaacista anaa iska lahaa wakti bayna qaadatay lama daabicin laakiin sida kato waa loo dhamaystiray qaamuuskii ay qori jirtay akademiyadu daabici jirtay oo 15 kun oo erey ahaayo uu oogada kaga qornaa Kennedy yaasiin cismaan Kennedy uu ku qornaa waana kayd dadka u yaala wax barxala oo la qorayna isaga ka jira kuwa kale kuwa la qorqorayo kale to waa arkay oo laba iyo ah oo mid Djibouti lagu qorayo mid maaqan Itaaliya meel lagu qorayo meelaha lagu qorayo oo Talyaani ka buuxo marka laakiin kaas waa barxala ah oo Soomaali khaas ah marka buugta tan waxaan rabnaa horta dadku inay qaataan oo manhaj weeyaane ay bartaan oo caruurta la baro oo barafadada iyo iskuulaadka gaarka ah lagu baro caruurta North-Eastern insha Allah rajab fiican waxaan ka qabnaa inay yana dhaqan galiyaan macallimiinna kulli si kasta loo keenay macallimiin waa la soo macallimiinta waa la keenaa oo wax lagu keenaa wadan kasta dibadda macallimiin waa ka keensada inagu Soomaali baan nahay inagii baaba waxay hoganayaan dadkii af Soomaaliga wax ku bartay waxay wada hoganayaan wadankan gudihiisa oo intii doono laga heli kara North-Eastern Garis iyo xiriiqa qaxootiga haw badnaadeen cid loo waayay maayo kulli in la baro la tababaro waa shay muhiim ah marka buugta tan waa afar dugsiga hoose oo qoran afarta saddex kamidi waa syllabuskii waan dib u qoris baa oogada kaga qoran waxa dib u qoris ku sameeyay qoraa Cabdifataax Cabdullaahi Muuse ku qoran waad arki doontaan afarta buug laba kamid ah hadda halkala lagu iibinaya labana madbacaddan ku nimiyo lacagtii lagu soo qaadi lahaaba ba ka yaraatay waxay noqotay in inta la hayo la soo qaado la soo bandhigo bulshada loo soo bandhigo si qayb uga noqoto cid kasta oo qayb ka qaadanaysana waa soo dhaweynayna intay doonto hal ekaatay waayo wayna ka dhaxeeya waxaan anagu leeyahay ma wax Cabdiwahaab leeyahayna ma wax nin kale leeyahayna ma waa dhaxalkii awowayaasheen oo dayacan oo gedigan inaynu isu taagno u baahan dawlad iyo shacab marka aan u guntano afarta buug aan soo saarnayna afartii dugsiga dhaxena waa diyaarsan yihiin oo iyagana inaan daabacno kuwa kan hadii ay wada loo helo lagu dhigo baan iyagana diyaarinayna oo raadinayna waygoodii kaleeto sidaasaan marka insha Allah buugtana habka aan u soo saarnay u dhigan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ila qaadan doontaan ra'yiga dib u nooleynta afka in la ila qaadan doono oo qof waliba uu guntiga qabsan doono buugta tan buug kastaana wuxuu wataa sheeko xariirooyin ah
waxa Englishka supplementary lagu dhaho ama af Soomaaliga lagu dhaho kabis ya oo loogu talagalay qofku markuu akhriyo wax inuu markuu qorista iyo barto iyo akhriska isku xilka ereyada uu barto inuu wuxuu akhriyo helo oo sidii manhajkii iyana u qoran buuggii hore oo buugga koobaad oo manhajka ahaa looguma talagelin in ajnabi wax ku barto wuu yaalla isagana waa wadnaa laakiin looguma talagelin kan hadda aan ku soo darnay waa mid qofka aan afka aqoon xataa maadaama aynu u badannay caruurteennii dad aan afkiiba garanayn inay higaada ku bartaan isku xirka ereyada ku bartaan xuruufta isku xirkooda iyo erey bixinta baa loogu talagalay waana buug aan awal ugu talagalnay waxa kan aynu dhaano baby galaaska ingiriishka lagu dhaho oo ciyaalku intay yaryar yihiin ay ku bataan alifbeedka haddana sidii uunbuu u soconaya kan kaleeto markuu dabacaadda labaad galana insha allah shantuba iyagoo wada socda bay soo baxayaan saasaana waxaan rajaynaynaa marka in dadku ay u ogaadaan qofkii su-aal qaba ama wax iga weydiinaya ama feker igu kordhinayana diyaar insha allah baan u ahay saasaana insha allah buug waxaa jira isaguna ah mahmaahyo oo buugtan ka mida buugga kan labeenta hadalkaa la dhahaa 2700 oo maamaahood baa ku jira oo maamahdii Soomaaliga ah hab xarfaho say isugu xigeena oo ah qaabkii alifbeedka bay u qoran yihiin qaybta dambe waa ereyada saddexlaha iyo afarlaha iyo labaalaha ah inta kalena waa kowle waxaad arkaysaa 20 maamaahood oo doqonka kaliya aba ka soo horbaxaya 20 naagaha aba ka soo horbaxaya 20 geesiga waxa yeedhisay isugu xigaan waa si cajiib ah hadana waan isugu xijin marka 270 maamaahood oo biyo kama dhibcaan afkiya meel ay iska yaaliin oo laga helaa ma jirto marka insha Allah waxaan rajaynayaa in isagana si gaar ah looga sii faa'iideysto manhajkana la barto oo caruurta la baro iskuulaadkana lagu dhigo insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa mahadsantahay ustaadi runtii waqtiga oo gabagaba ah wadeed haddii uu jiro hal laba qof oo su'aal qaba waan soo dhaweyn lahaa waxaan mar kale aan baraarujinayaa buugta xagga hore taala buugtu xagga hore taala buugtan labeenta hadalka oo runtii mahmaahyo fara badan ay ku jiraan wax badan ay ka faa'iidi doontina waa ku jiraan kalaaska koobaad kalaaska labaad kalaaska saddexaad waxaa cajiiba beriyoed baa gabar yar baa ii dhalatay markaasay gabadhi dee ilmaha waa aragtay iminka waxaa lagu canqariyaaba oo lagu barbaariyaaba bahal TV oo kartoon ah waxaan waayey kartoon oo af Soomaali ku hadlay oo ilmahan bal inta loo shido oo bal wuxuu ka fahmi karo ilmihii yar hadda guriga joogo English buu kula hadlayaa waa 4 jir Ingiriiska ka badiya waxaa macallin u ah TV-gan marka waa mucjiso kale oo nagu soo moogtahay annaga lafteena haysato marka way fiicnaan lahayd inkastoo dad badan aan ka warhayo ay jiraan oo hadda ku howlan hawshaas in arrimaha kartoonka iyo caruuraha iyo waxyaalaha afka ay ka baran karaan haddana ilmaha badankeena dee qofkii aabba baa garan kara aabbayaal badan oo waaweyn baa meeshan fadhiya anigu la yaab bay horta igu noqotay ilmo yar oo adiga af Soomaaliya Englishka ka badiya oo heer iskuulna gaarin oo yar oo 4 jir oo 5 jir oo English waxa ku xiga hadana qof gabadha shaqaalaha ee guriga ku joogto iyadana Soomaaliyeed ah oo af Soomaali hadana kula hadlayso ilmihii ya kan English buu kula hadlayaa ilmihii Soomaali marka ilmihii yar wuxuu dhaxayaa English Soomaali buu ka hor baranayaa afkaaga hooyo ee Soomaaliga ah hooyooyinkeena khayr Allah iyagana arintii Sheekh Cabdiraxmaan ka dhawaajinay runtii arin aad u weyn weeyo iskuulaadka ka jirta aad buu mahadsan yahay Cabdifataax arinta su'aal ma aha laakiin waxaan rabaa arrin yar oo dhiirigelin ah horta sida uu sheegay Cabdifataax Cabdullaahi Muuse waxaa dhalay abwaan runtii caan ahaa oo deegaanadaas caan ka ahaa oo weliba dee nin kelimad weyn ku leh dhinaca abwaanka
waaba fiican yahay hadduu hadda buu ka diyaariyey oo aan isleeyahay hadda 60 gabay maba aha gabayadiisu laakiin nin intuu yaraa ilaa intuu weynaaday gabayaa macruuf ahaa buu ahaa af Soomaaligan hadda intaynu ognahay anigu sidaan ka warqabo nin la Yuusuf Shaacir iyo dad kooban oo aan badnayn ayaa isu taagay afkiina waxaad moodaa inuu sii baaba'ayo waxaan filayaa hadda inaan ka xiriiriyahay wuxuu garan waayey abaaji waxaas waa abaajiyey yacni waa masaa'ilka ugu fudud maalin dhawad anuu nin baan la hadla waxaan ku yidhi waxaad ma taqaanaa waxa la yidhahda qaaf ama qaayibid may waxaad ku hadlayso mama garan karo ogaadana afka waxaa laga helaa qofku haddaanu sugaanta akhriyin afka rasmiga ma heli karo wuu dadaalay waxaan qabaa inaan dhiiri gelino cabdifataax iyo ragga la midka ah manhajka halka hadda aynu joogno oo Kenya ana laga bilaabo 4 buug oo lagu daro ragga waliba macallimiinta oo hadda ragga qaybtiina kala joogeen iskuulada hoose ilaa secondary la wado afkii Soomaaliga in iskuulada loogu dhigo carruurta taasi waxay sahlaysaa ilmihii inuu luqadiisina ilaashan tahay luqadaha kale toona waa sida sanataradu sheegtay ma aha luqadu cilmi anaga waxaan garanaynaa iskuulada markaan ka baxnay tamhiidiga ama iskuulka marka la yiraahdo jaamacadaha la galo 6 bilood baana la siin jiray markaas jaamacadu gali jiray ilmihiina markaas wuxuu ahaan jiray meeshii u sarreysay gaari jiray marka waxaan leeyahay ha laga bilaabo halkan iskuulada hadda inagu aynu gacanta ku hayno islii ha laga bilaabo in manhajka lagu daro macallimiin loo tababaro afkii Soomaaliga lagu dhigo anu taasaan dhiirigelinaa wala mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan rabaa inaan marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala halka isugu keenay inagoo caafimaad qabna baynu u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan usoo istaagay commenti qoraaga Cabdifataax waa u hambalyeynaynaa juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiga badan uu geliyey inuu dib u qoro ama dib u soo nooleeyo afkii hooyo runtii maanta waxaa jira inuu af Soomaaligii dadku Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uu aad ugu dayacan yahay wax badan aanay ka aqoon hadda markaa aragto chattingka la isu qorayo ama dadku markay wada hadlayaan oo wada sheekaysanayaan erayada waa la soo wada gaabinaya dad waxa arkaysaa arday jaamacadeed oo jaamacada ka baxay oo Soomaaliga aan wax badan ka aqoon marka ama jaamacad ha dhameeyo ama hadda ha dhasho horta dadka Soomaaliga waa u wada baahan yahay laakiin si Soomaalideena cudur baa ina haysta la dhaw waa naqaanaa wax walba waa naqaanaa hadda inteena hadii la weydiiyo ama mikrofoonka loola dhex qaado waxaan dhahaynaa waa wada naqaanaa marka aniga aan iska bilaabay waxa way wax badan ba waxa way dayacaad Soomaaliga ah jira sanitarada dawladda inagala joogtana waxaa la rabaa in barnaamijkan iyo qoraaga la dhaqaajiyo oo dadka waxa abaabuli kara oo wadi kara waa dawli nidaam dawli ah dalkan aan joognana anagu wadankan 3 sano aan joognay oo ciyaalka ku dhashay waxaan u naqaanaa sujuud macnaheedu waxaan ugu bixinay Soomaaliga ka dayacan yihiin wax kale waxaan amin dhawto guri aan booqday abtigay leeyahay wiil yar 4 jir baa jooga waxaan aad ula yaabay wiilka 4 jirka hal eray oo Soomaali ama yaqaan suu TV u horfadhiyay oo English u daawanayay Soomaaliba ma yaqaan marka hooyadii dhashaan ku yiri wiilka Soomaaliga maxaa ka haya waxay tilmaaba yaqaanaba nin maanta ilma 4 jiro oo aan Soomaali aqoon maalintu 20 jiro dhigay waxba maalinta hooyo xitaa oran kari maayo marka qoraagana juhdi buu galiyay dadaal buu galiyay in la dhiiri galiyo waa mahadsan tahay miisaanka xasanaadka Allah kuugu daro waxa weey buugtana deeyaan loo kala tagay ninba waa taagti ninba waa tamarti muhiimadu waxa weey isaga dhiiri galin waxa uu ah hadal dhiiri galin uma ah laakiin se waxa dhiiri galin u ah in buugta waxa weey la sii qaado caruurtii loo geeyo ninkii iska abulana de kuwa mahmaayaha anfacayo waxa weey rag de golo joogo marka golaha timaado waxa rag iskaga dhicin lahayd baa murtiye madadaalo ku yaala waana salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba su'aal aan ku weydiiyo su'aashkooda waxa weeye maadaama aad waxbarashadii iyo
maalintan ay joogto Soomaaliya markay noqoto hadda ka hor waxaa dhacday waxaan booqasho ku tegay xerada qaxootiga Dadaab qolooyin aan isla soconay oo Mareykanka ka yimaadeen macallimiin ah marka meesha tagnay ninka district weynaa iyo wixii la fariisanay marka ninka wuxuu noo sheegay wuxuu problemkan haysto waxaa weeye ardaydan aan wax barayno Soomaali waa u dhahay dadkan waxayna ka yimaadeen Soomaaliya u dhahay hadhoona Soomaaliya ku noqonayaan dabcan like problemkan haysto wuxuu dhahay taariikhdii civic waxay dhahaan maadooyinka maxaa la dhihi jiray oo dawliga lagu baraa taariikhda waddanka xornimada suu ku qaatay waddanka intuu jiray taariikhdiisi ma bari karno ma barno dheh waxaan barnaa taariikhda Kenya barnaa dheh soo ilmihi marka saas wax loo baro hadhow waddanka ku noqdaan taariikhda Soomaaliya ma hayaan waa fahanto marka waxaan isku dayay inaan Nairobi aan soo noqday inaan dad xildhibaan iyo dad inaan la hadalno waxaa kaloo jirta markay noqoto curriculum ama manhajka ilmaha la barayo waa in dawladda ay xilkaas ay qaadaa manhajka ma noqonayo wax gobol ama qabiil gooni ah ama koox gooni ay leedahay ma noqonayo waa inuu noqdo wax caam ah oo dadka dhan ka dhexeeyo dawladda ay qortay ama dad ay u xil saartay guddi marka waxaa rabay maadaama aniga waqti hore waddankii ugu dambeysay arrimahaas waxaa rabay inuu iga jawaabo sidii waddanka hadda uu shaqeeyo waxbarashadiisa intaa ka og tahay su-aasha dambena waxaa waye ugu dambeyso af Soomaaliya hadda wixii digital ay noqdeen horta buug meel walba buug Soomaali lagu qorto ana waan gataa hadda kuwa iga dhiman hadda sii gadanaya si aan u dhiirigeliyo bal ninka qoraaga ah waqtiga uu geliyay at least inay wax uga soo noqdaan oo asna wax kale uu sii qoro marka anaga wax ma qorno waxna ma akhrino wixii la qorana ma sii kobcaan marka hadda waxaa umalaysaa wixii inay digital noqdeen waxaa jirta school private baa aan iska caawinaya si private marka waxaan sii clip nin macallin Soomaali ah oo ardayda uga sheekeynaya sheekooyinkii dhagdheer iyo sheekooyin noocaas aad bay u anfacday inay ilmi af Soomaali ku bartaan marka inay idinka ballanka digitalka ah maadooyin saas oo kale oo digital in la sameyn karo iyadana inay suurtagal ay tahay waan mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay aadan magaciisu aadan mahay ha aad baad u mahadsan tahay walaal waa su-aal fiican kulli waxaan u malaynayaa laba su-aalood bay ahaayeen oo dhinacana isku xaglan dhinacana ku kala baxsan su-aal waa tan Soomaaliya iyo haddii ilaahay idankeeda leeyahay waxbarashadeeda iyo systemka iyo sida uu yahay hadda taa waxaan u malaynayaa kulley sanitareed baana kala joogta oo weliba kuwa hadda shaqeeya ah wixii xog rasmiya ah kulley iyada ina ka siinaysa laakiin kulley intaan ka warqabo anigu Soomaaliya dawladdu nidaamba iyadu ugu tala gashay inay wax ku barto dadku wax ku bartaan nidaamkaas oo ah in afka Soomaaliga lagu baro dadka oo xukuumaddii tan ka horeysay baa diyaarisay wuxuu doonaba ha ahaado tabar kasta ha ahaado laakiin waxbay kulley diyaariyeen laakiin nasiib daro Soomaaliya intay tahay dadku ma wada ictiraafsano gudaha ku nool gobollo aan la shaqayn baa jira oo aanu ka shaqaynayn oo laga yaabo marka waddanka la kala baro bar inuu noqdo taasuna waxay caqabad ku tahay manhaj kastoo la qoro inuusan macno weyn ku simeynayn gudaha laakiin in dalka horta qoqob baa ku jira qoqobka waa taqaanin baan u malaynayaa intiina badan ninkaan aqoonna xoogaa tafsiira baan uga bixinaya qoqob waa xero marka la oodo ama meel la oodo deyr yar oo dhexda ah oo laga dadku ay ka yar tallaabsan kara xoolaha iyo baa loogu talagalay in lagu kala googooyo mathaal idaha iyo riyaha oo kaleeto markii xero weyn ay ka dhaxayso dhexda qoqob looga sameeyo waa teelteel bahal xooluhu aanay mari karin laakiin bahalku durduro ku maraayo oo aan bahalka loo baqin laakiin xoolaha dhexdooda ah kaasa qoqob marka qoqob kaasoo kale ah baa bulshada dhexdeeda ka jira marka afka iyo manhajka laga qoro Muqdisho oo dawladda dhexe qorto Puntlandna ma gaaro Somalilandna ma gaaro kamana shaqeynayo balse iyagaaba kuwa iyaga u gaara samaystay
marka waxaan moodaa inaynu isku afna nahay kala afna nahay sida hadda ka muuqata marka kaasna kolleyba caqabadahaasoo jira aawadeed in wax badan oo culaysi jiro waa dareemayaa laakiin taasoo jirta inaynu inteena dadkeena shacabka maxaa ina saaran innaga inaynu isweydiino wixii dowladda saaran dowladda laga rabaa laakiin innaga maxaa layna ka rabaa taa unbaa innaga inoo furan su-aalaha inaynu isweydiino jawaab u helno tan kale markaan uga gudbo oo ah kilibyada tan ah digitalka digital intaan la aadin waxaa jira in shayga digitalka la gelinayaa waa shay lasoo dhamaystiray oo banaanka lagu hagaajiyey oo software isagoo ah loo bedelay digital markaa in lagu dhageysto ama lagu akriyo ama lagu daawado marka processka waa gaari doona insha allah laakiin anagu hadda kulley waxaan ku jirnaa on the way dariiqaan kusii jirnaa processka baa socda waana gaari doona insha allah laakiin waliba manhaj weeyaan kaanu hadda wadnaa ma aha mid guud ahaan loogu talagalay in sidaa hadda aan u dhigano hadalka digital loogu sii isticmaalo in galaas macallin loogu dhigo arday baa muhiimadu tahay hadda si afka loo barto marka intaas weeyaan insha allah intaa kulley aan anigu fahamkayga manhajkii Soomaaliya wali kulley badan baa ku hoos duugan oo siyaasadda ay qayb ka tahay marka waa laga heshiiyey marka laga reebo Somaliland Soomaaliya hadda manhaj waxay leedahay dugsi hoose dhexe dugsiga hoose iyo kii dhexeba waa la dhammaystiray kii sarana wax yar baa ka haray marka waa manhajkii waa la nooleeyay insha Allah dawladda markaan ka hadlayno dawladda Soomaaliya territory bay leedahay xiriyaha qaxooti wax ku dhex yaalaan Kenya marka dadka Kenya ayaa la rabaa iyaga laftirkooda inay haday waa sheegay sheekha oo waxbarashada marka uma soo gudbi karta laakiin guud ahaan Soomaaliya macnaheedu ma aha haddii status la kala yahay inay u kala qoqoban yihiin siyaasadaha waxbarashada iyo socialka waa wada shaqeynayaan